xisaabtamana ceeb maahane meeshaanna xisaab fara badan oo maqanna waan u jeedaa mid fara badan oo ku soo biranna waan u jeedaaye aaw naagtayda waa inaan la tashadaa aaw gaclisadaydii aaway marwa haa waa soo socdaa kaalay gaclis kaalay xaajiga isagana mashquul maalin kasta buuggaanaab ii wareeriyaba xaajiga wallaahi waa la yaabanaha gacalisiina marwo haye gacali fariisaba adiga quraac xataa ma isku dhibaysid shaana cabaysid ka hadlaysaa aniga habeen iyo maalinba inaan xisaabtamo ayaan ku quraacdaa ku qadeeya ku casheeya maxaa yeelay baasa badan ayaa meeshaan ka muuqata buuggan iyo aniga waa inaan mar walbaba 10 aan wada qaadan laakiin adiga haddii aad mar walba xisaabsaan iskugu wareerisid waa duqoobaysaa inay iga duqoodid ma rabo aniga ma garatay waa runtaa gacaliso laakiin midaan kuu sheegaya nin baasaasa sidiisaba ma duqooba baasad ayaa joobana ka dhigaysa marka waa inaan xisaabtamaa xisaabna ceeb ma laha adduunyada dhan waxay ku taagan tahay xisaab gabadhaan xuntaa oo guriga joogtana agteeda dhulka ha dhigto wareegyada dhegayso xisaab iyo hawshaan hays meel intaad iska dhigtid waad ogtahay ubax baxay ayaa guriga noo jooga marka waa inaan ka tashana arrimeeda mustaqbalka waa runta ubax baxayo guriga waa noo joogaa laakiin horeyaa soomaalidu waxay u tiri gabari waa hooyadeed marka hooyada dhashay waa adige waxaa loo baahan yahay gabadha in aad waanisid oo aad la hadashid oo mustaqbalkeeda iyo aayaheedaba aad ka fikirtid waa sax marka uwac gabadhaada anigana waan la hadlaa adna la hadal ilaan labadeennaba waa inaga dhexaysaa ilaahaana wada siiyee marka uwac si aan wax ugu wada sheegno anagoo wada jira waa runtaa gacaliso labadayna inaan wax wada sheegno aad iyo aaday u wanaagsan tahay haddaannu wacayaa هاي gabadheedu soo fariiso gabadheedu marge fariiso annaga ku annay haabo maxaa darana maanta maxay u qeylinaysaa maanta gabadheedu qayl ma jirto waxa awlaad adiga ayaan ka qabaa adduunkaana waxa ii jooga adiga iyo hooyada iyo hantideeda faraha badan marka waxaan ka doonayaa hantidaas aniga cid kale uma tacbini adigan kuu tacbayay in aad hantidaas ila xafidid maanta wixii ka dambeeyana xafiiska ayaad igala shaqaynaysaa hantidan ayaad dhinac ka ogaanaysaa waa fahamtaan u malaynaya xafiiska ayaad igala shaqaynaysaa guri joog iyo iskool iyo habartii iyo ma jirto meelo wareeg maanta wixii ka dambeeya ma jirto aabbo horta aniga hadalkayga dhegayso hooyo la hadalno waan ku barya aabbayga la hadal maqal hooyo maya aabbo waxaan ka wadaa aniga iskoolka wax yar ayaa iiga dhiman war iskoolkaad ka hadlayso waa maxay iskool sidiisaba cilmiga ugu dambeeya oo naag ay ka soo baranaysa maxaa waaye ultima guri joogaad noqonaysaa nimaad xaaskiisaaad noqonaysaa iskool in kugu filan waad soo waan ogahay aabbo laakiinse waxaan rabaa wax yar inaad iga sugto maya ma jirto hadal inaad igu soo celidna anigu ma baahno waxaa la joogaa xilliga xooggaaga aan u baahnaa aabbo waan ku baryaa aniga wax yar iga sug horta habartaa maxay noo dhegaysanaysaa naagtayda waxaan ku weydiinaya hadalka aan gabadha kula hadlaayo maa khalada waa adigana dhegaysanayay oo wakhtigii aan xooggeeda u baahnaa miyaynan ahayn inaan su'aal idin weydiiye ma xumee yaan aniga xoolaan u tacbayaa ayadaan u tacbayaa yaa laga doonayaa xoolaan inay xanaanaystaan ayadaa laga doonayaa aniga berri ka maalin waan dhiman karaa xoolahaanna laakiin aniga dhexda marka hore adiga gabadhiina heshiiya aniga shaqo kuma lihi gabadha adiga ayaa hooyadeeda inaad la hadashid adiga ayaa loo baahan yahay ani berri ka maalin waan dhiman karaa xoolahan qofka looga dhimanayo waa ayada marka ayada laga doonaya inay xanaanaysato adigu ma waxaad doonaysaa sida meelaha u istaagaysay derbida uga qabsanayso inay ii soo xarayso hal ugaar ah oo meel uu heesa aanan jirin kadibna jacaylaan isu qabnaa aabbe intay tidhaahdid ay ugaar kale ay ii dhasho oo aan inshuransi ku jirin iyo caymis horta adiga waad hadashay waxaad doontidna waad iska sheegtay laakiin anigana tayada dhegayso aniga ma doonayo gabadhan in la iga kalifo teeda kaleenta adigaba aabbeed ayaa tahay dhibbaa labadiin xalisan weyseen aniga idinma xalinayo idinmana dhexgeli karo laakiin aniga muhiimaddeeda waxay ay tahay gabadheeda waxa ay doonayso waa inay heshaa xornimo waa inay u noolaataa waa inay go'aankeeda u madax bannaanaataa iyada siday doonta ay u dhaqantaa bes intaasaan rabaa aniga wax kale ma rabo
adigana aabeeda tahay dadaal taas macnaha hadalka waxaan kala dhiminayaa gabadhan in aad ugaar aad ka dhigtid ugaar dhashay inay noqoto ani ma doonayo waxaan doonayaa caymis inay ilmaheeda ay ku jiraan ilmaheeda mustaqbalka dambe waxay cuni lahaayeen in ay ayada ay gacanteeda ay ku tacbato taas sax waay waa fahamtaan u malaynaa waxa leedahay hata shato waa inaad shatona way ku qasban tahay laakiin se waxaad ogaataa wax walba dhici raba inay qoran yihiin wax ayada u qorana annaga kama celin karno horta wax mustaqbal ay dhisanaysaa waxaan horseeday ma lahan aniga waxaan diidayaa xornimo iska qaadka oo kaliya maxaa yeelay aniga markay guursanaysay adoo shiida ay guursatay maantana hanti ilaaha ku siiyey cid xornimo iga qaatayna ma lahan waxaan kaliya rabaa seerafta inay noolaato ayada bis ma garatay saasaan rabaa aniga idageyso ها وأنا مقلوية سفي أنا كم مقلوية وركي يسود الدجي أنا قبلنا حرني كلية يسي أنا عمرتها wax ay haleena ismalaan ana laba tanjiro aan ku dhahay haddii basidan haddaad hadlaysid gabadhina sidee ila hadlaysaa war aniga gabadhan mustaqbalkeedan ka fikiraya haddii aadna mustaqbal gabadhan aadna la doonin aniga madax mayga cunaysiin adiga iyo ayada waa isku kiin dhaafayaa hay wareerina waa iska baxaya salaama ana wax fahansiinay adinka leewaay ama isfahamsiin ama iska daay hanti iyo lacag iyo wax la sheegtay iska bax soo fariisi bal gabadheeda hooy aabbu xanaaqi maanta ay iyo waran bal adi xaaladaada ka waran aad waa hooy aniga waxaan rabaa waxbarashadayda inaan dhammaysto marka hooy iga qaba ilaa intaas idageysa gabadheeda horta aabbaha waad u jeedaa saan iskula hadlayna aniga isaga waxaan isku reebanay ma lahan run ahaantii gabar hooyadeed waa ayaa la dhahay adiga ceebtaad keentid aniga idamqaysaa aabbaha shaqo uu ku leeyahay ma lahan waanoo keliya kugu leeyahay marka gabadheedii waxbarasho hadda wax yaraa kaaga dhiman naagna waxbarasho